بمعاني وحنا ناقة قرنكا ها أقصلين هذا المعان ها أورانين ولا أقبح وحان سيكوني ورطنين كي وفيرسلان نفت إلهي إي كانن بيبي نفت إلهي إي كانن أنا جعلي هنا ماها intaas waxay igu dul wareeganayaan qadar ay uranayaan nafti war waxaan qoran waay baby hadal macaan ha oranin allah duuya hadal macaan ha oranin waxaan qoranka waxaan kow ii kartan ilaahay ha u keene hadal macaan ha or saasi ku eryanay ku daba socdaan habar iyo gabar yar iyo magaciisi hadal walaal uga baxnaaga qadar waxaan qoranka waa qumayooyin nafta ilaahay ii keeneen taleefankii gacanta kii ka guriga kan oo text baby macaano ina iga dhimatid ma rabo baby waa ku baryaaya haddaa weligaa haddaa xushmad ii haysa xaaskaaga baby waa ku baryaaya erey macaanaagaan ha dhihin ina iga dhimatid ma rabo baby qumayooyin waay sida darbidkay ku eeganayaan anigay bay nafta ii keeneen whatsappka iga soo galayaan messageka caadiga iga soo galayaan facebooka iga soo galayaan 10 jeer kusoo celcelinayaan anigaba igu waasheen macaan baby erey macaan naag ha ore walaalle ma uga bixi kartaa marka masawirkan saaraysidna quraan ku akhri sunna quraan ku akhri baby waa ku baryaaya I don't want you ina iga dhimatay ma rabo baby caadi ma aha baby quraan ku akhri waa ku tuugaya baby wuxuu dhahaa ma ogtahay ingiriiska wuxuu dhahaa a picture says 1000 words picture says 1000 words annaga muhiim maaha inaan hadalno picturekaasoo kun eray sheegaya kun eray sheegay I don't want you die for me baby please baby markay xitaa kuu soo galaan oo kula hadlaya bismillaahi raxmaan raxiim dheh thank you baby ani waxay ila tahay mataqaanaa ya waxay ila tahay aniga fikirkayga adigana soo kuleeyahay feeri waxay ila tahay inaa musawirka kaligiis meesha aad soo dhigayso inaad intaad cod soo hadasho adiga lacagna aan ku helnay intaad soo hadasho videoga meesha aad soo dhigtay maxaa la dhahaa fahimo meesha ay kaa taagan tahay dad kala go-aaya inaa ahayn in magaciisa marka naagahan way ku xanaaqsan yihiin fahmaysaa ina aad videogaas wax weyn aysa ahayn oo wax aad u arag qalad inaad meesha usoo dhigtay oo maxaa la dhahaa maxay kula tahay adig marka wax haddaad rabto videoga ha soo qaadin laakiin waxaad ka hadlaysaa dadka ibni aadanka sida qof ayaga waaninaya oo lamaanaha waaninaya oo dadku inaysan kala go-in saas maxay kula tahay inaad soo hadashid waay adig musawirkana aad soo saarto lacagna aan ka helno أنا راسي إلى طهي بيبي هنا عد كاغا أي مقلان واي أو مجلس ما شاء الله تبارك الله وكفر حياة المركز هذينا هالكاس أوجا صحن طهي أدوان وصاقش إن دتكو ساكو كلا جوين إن دتكو وقت بدن ودقاتي ونشوا ودقاتي إن الساس وحى نوع عاس وكو كلا جوين دتكو إن يسا ودواني نيسا وانا وجو بحيسابه مصور كانوا وصل صاريسا هاي كلها طهي ها معان بدنا ساسنا سميسيت وابركي مر فيديو يضم بقي وحا سو قلنا دان إن بقل كنا قف فيرسة ربنا marka waxa way naagahan iska sax waxa waana ahaan dad ani fahim waqti wax badan isla soo marnay waqti badan aan soo wada qaadanay adduunyo jab iyo dheef waa soo wada marnay dad saas u kala go'aamanayn dad waxaan nahay dunta hoose iskaga xid hadal lagu ma sheegayo day markaas kulli wada halkaas hadalkan halkaas ku xirmaaya ha ku dayso wararka ku day musawirkan waa musawir kaligiis lacag ma laga helaayo hay هذه محاولة يا أنا بيها يس يقصق أنا يقصق أقناي قميوينك شبيد هذه والله بقولكم بافير سنة أفكار مكان كالفرق هذه هرتبل يجهر مر إلى جوك بيبي إلى جوك حاس في عنا كون قنايا
ila joog baby jaamacadda tag anaa shaqaynaayo xaas fiican baariinoo kuu noqonayo ila joog baby you don't have to go ama soo arag ii soo noqo jaamacadda gal waxbaro anaa shaqaynaayo I promise you thank you hay dhihin macaan wallaahi aniga xaas anoo kala weligaa ma arkaysi bay marka runta xaqiiqda kaala hadlo markii animo aan iska qaylqayliyo aan iska xanaaqo baxda weligay baan bax dhihi jiray ila joog baby thank you hay dhihin macaan wallaahi aniga xaas anoo kala weligaa ma arkaysi bay marka runta xaqiiqda kaala hadlo markii animo aan iska qaylqayliyo aan iska xanaaqo baxda weligay baan bax dhihi jiray laakiin inaan horumar gaarto waa jeclahay 10 sano anaa kuu shaqayn karo kuleel iguma hayso inaan horumar gaartaan jeclahay in horumar gaarto oo dadka saas weligeena waa ku dhihi jiray marka thank you hay dhihin mar kasta diyaaran ku ahay ani hana wada xafido baby ilaahay hana wada xafido meeshaan u soconna ilaahay hana fududeeyo iyo waxaan jecelnahay qalbigeena ilaahay hana xafido isha bani aadanka iyo xaasidkan allah naga haayo ilaahayna hanala jiro baby love you 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أد بان دي سلام يا أمد الصومالية هالكان يقال سعوتها إن حقيقة ربطها إيه جرتها هالكان كاقشيغو نورتو لا شي فيهم أد بان سلام يا رون أهانتي أني أيضا برامج كان فيديو يوتيوب كمحان أصميني وعي قلنت بالشدة وحان أصميني كالسوني آن اسكو قبنا إيو وناك لكن سيدا هذا أي وحكو سعودان آنو مرنم رالك معي walaasha shalay markii aan wada wada joognay waqtiga wada qaadanay ee wada yaani wada cunaynay wada cabaynay wada cuntaynay qofna qofka kala sumcadiisa lagu ciyaaro iskumaana ogeyn qofna qofka kala hal bahdil iskumaana ogeyn laakiin aniga barnaamijka aan bulsho wacyigelinta u soo galnay in aniga aan sumcad xumo aan kala kulmo walaal aan xuquuq baan leeyahay macquul ma noqonayso run ahaantii midda labaad ee ah kicinta bulshada in la kiciyo ma fiicna bulshada kicinteedu waa wax aad u khaldan oo waxa weeye dee qof walba qof camera ka daawanayo wax aad tahay ma oga laakiin wax walba uu iska aaminaya waxaan leeyahay taasna waxa weeye bulshada Soomaaliyeed istijiya midda labaad ee ah ay ku tiri khadar waxa weeye waxa ay dhaamay wiilkayga aabihiis hadduu i dhaamay ninkaas toddoba ay joogay run ahaantii waa taariikhdeeda wayna wada haynaa wuu ka tegay mana uusan usoo laaban laakiin anigu 5 sano oo maanta ay oo bishaan maanta lagu jira ay ku shan tahay 5 years baan la noolahay alla joogaa ku faraxsanahay ku faanaa gabaya u tiriya gaaraan u sameeya oo aan cidna iga khasbin cidna ama taqaana aanan kala tashan haddii aan qof xun ahay haddii aan jisaar ahay haddii aan nin damiir xumo aan ahay 5 years lama joogeen markaan saa u imid London aan maanta jooga aan ka soo degay ayaan magaalada ka gali lahaa Ireland aan tagi lahaa adduunyadaas kale aan waxa weeye suuq ay gali lahaa laakiin alxamdulillah mar walba aniga waxa iga qiimo badnaa oo xataa wareysigii bishaarab ay inaga qaadaan ku sheegay inay ka qiimo badan tahay sharciga inuu ka qiimo badan yahay qofka aad jeceshahay sharciga inuu ka qiimo badan yahay sharaftaada waxa ay leedahay waxbuu qaatay sharciga uu qaatay markaas iga tagayna walaashay ilaahay malaa'iga garbaheeda saarane walaashay ilaahay ka baqdo arintaas aad baan wallahi uga xumahay sumcadeed in lagu dheelo dad family baan ka dhashay ehel baan ka dhashay sumcad ba agteeda waxa weeye aad loogu jarjaray sumcadeeda aad ba agteeda loogu jarjaray waxaan leeyahay walaashay waxyaalo badan oo khalad aan ka dareemayo baa jira laakiin anigu boqolaal kumanaan cadeemood oo xaqiiqooyin baan hayaa hadda qoraaladaad arkayseen oo aan soo dhaafay oo aan soo wada dhageysteen waa waxyaalihii aan ku wada sheekaysanay videoga markaan wada doobnay kadib waaye wixii aan ku wada hadlaynay waliba anigoo London jooga ayaa waa 7 bisha Agoosto waaye sida aad qoraalka wada aragtaan korka hore hadaad si fiican u fiirin kartaan waxaan isku afgaranay inaan marka hore aan videoga aan cod ahaan sawirka u soo saaro kadib aan videoga soo geliyo arimahaasna waxa weeye waa qorshihii aniga ii jeexnaa oo ani ayadu aan isku afgaranay waliba ayadu ay leh dadkan wanaagaha siin naagahan ka fogow waad wada dhageysteen okay taas maxay mid waxa ay soo hartay ilaa ay igu leedahay walaashay ilma ma dhalin ilmaad iga tagaysaa waxay la tahay qofkii aqal lagu dareemi karaa ilmo ilaahay baa haya wax bin aadan haya maahan hadda anigu hayana waxa weeye ama qof kale hayana 10 baa loo dhali lahaa
weligeyna qof bini aadan qalbiga ka jabay iska daayay anigu bulshada qalbigeeda in hagaajiyaan jeclahay oo ilaahay iga ogyahay qofna qalbigiisa inaan dhaawaco weligey ma jeclaysan mana jeclaysan doono hadalkaasna waxa weeye dee ilaahay ayadii ilaahay baan u deynayaa oo wallahi way iga tahay inaan arrintaa weligey aan oran weligeyna aanan mataqaanaa walaashay hadal xun oo noocaas ku saabsan weli ka oran marka ay leedahay ilmo gabar baan kugu dhisi lahaana arrintaas gabarta iyo arrimahaas iyo waxaasoo dhanna dee wax iyadu ay qalbigeeda ka guuxaya unbay ku hadlaysaa anigu weligeyna gabar ii dhisma oran weligey ilma ima dhalaysay ima oran arrimahaas oo dhan oo kooban oo xaqiiqooyinkoodii iyo cadaymahoodii hayana wallaahi way jirtaa oo laakiin sabab aan idinkugu soo bandhigo meesha maba taalo inaan idiin soo bandhigo oo ceebahayga iyo gurigeyga aan idiin sharxo oo idin tustuso aniga dee way igala qiimo badan tahay fiima igala qiimo badan runta markaa idiin sheego fiima waxaasoo dhan igala qiimo badan haddii waxa weeye iyadu ay jeclaysta inay waxyaalahaasoo kale lacag lagu samayn karana dee waa xaaraan markii waxaas ay qofka bini aadanka uu sidaas wax u raadiyo xaaraan bay kugu noqonaysaa waxyaalaha qaar la iska daaya macnaha qurux badan wacyigelinta bulshada aanu ku wadnay inaan ku wadna bay ku fiican tahay inuu qof kale samcadiisa lagu ciyaara ma ahayn walaal fahiima arrintaas waxa weye waan ka xumaaday wallaahi bulshadii Soomaaliyeed oo dhan way kacsan tahay aniga unba wax la iga sheegayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baan og haddaan dembi la ahay haddaan dembi kaa galay haddaan khiyaano la ahay ilaahay calaamad ha iga soo saaro calaamad cad ilaahay ha iga soo saaro oo yacni iga dhex muuqata haddii aan adiga dembi kaa galay aniga waxa weeye sababtaan guriga uga baxay ama aan kaaga tegay ama aan kaaga kala fogaanayna waa mid adiga aad mas-uuliyaddeeda lahayd oo caddaynteedii aan gacanta ku hayo waa mid qofkii mataqaana caqli leh oo arki kara oo daawada oo waxaan hayo ila arkana uu runtii maanta uu kaaga samraaya waayo laakiin waxaasoo dhan anigoo aan caddaynayn waxaasoo dhan anigoo aan ka faahfaaqidayn waxaan ku leeyahay fahimooy dadka bulshada Soomaaliyeed aad igu soo dirtay adigu aad samcadda uga raadinaysid adigu aad isaga gadaysid walaaltaas xaq uma lihid qof bini aadan baan ahay wiil Soomaaliyeed baan ahay bulshada Soomaaliyeed role model baan u ahaa inaan ceeb kaala kulmo aniga qorshahaygu ma ahayn inaan waarid ay kaala kulmo oo bulshada aniga waaridka wada caynayso inay dhankaaga xumaan iga timaada ma rajaynin inay dhankaaga ay mataqaanaa intaas oo problema ay soo gaadho kaama filayn laakiin way dhacday laakiin anigu wax wanaaji unbay iga ahayd wallahi ilaa haddana wax wanaaji bay iga tahay bulshada tus baan islahaa role model bulshada u noqo baan lahaa gabar hadday weyn tahay hadday yar tahay in isku si loola dhaqmo in dadka la tusi kala baan dadka bulshada cashar noocaasaan baray laakiin maxaan ka dhaxlay ceeb baan ka dhaxlay maxaan ka dhaxlay ceeb iyo caybaan ka dhaxlay waarid caybaan ka dhaxlay aad baan wallahi uga xumahay wixii anigu aan wanaagga ku raadinay inay xumaan anigu ay dib igu noqdaan ayagoo sidoodii ah inay ta igu soo noqdaan ayagoo dhinacii kale ah aniga xumaan aan kala kulmo aad baan uga xumahay arrintaasna saan daan ogaan lahaa inaysan dhacaysona oo sidan aan xumaan u dareemayana wallahi marka hore ma sameeyeen banaankaasaan ka mari lahaa walaashay fahiimo jacayl baa ii keenay kalgacal baa ii keenay wanaag baa ii keenay ilaa haddana waxa weeye waan u hayaa laakiin sida ay muuqato waxii oo dhan waxay ka dooratay shilimaan yar oo YouTube ka soo galaya iyo inay bulshada isaga gado anigana dhinacayga xun ay dadka tusto oo ay tusto yacni ay isdhahdo ninka xun wey laga aamino oo yacni dhan walba ay mataqaan bulshada iga soo gaciso iyaduna ay iska dhigto qof aad iyo aad u qiimo badan oo la xumeeyey aad baan uga xumahay shalay inteedaan la ekaa Afrikaan joogay waan shaqaysanayay nolosheedu way wanaagsanayd waan isbaranay anoo qoslayaan isjeclaanay anoo qoslayaan kulanay anoo qoslayaan isu nimid anagoo wada faraxsan baan soo kala tagnay anagoo sideen isku waxana waa isku nimid anagoo sideen isku abaan YouTube soo wada fariisanay anagoo sideen wada faraxsan baan idin hor nimid ilaa haddana waxa weeye meeshii wax ka khaldeen anigu ilaa hadda laftiga waan ku wareersanahay ballanteedu waxay inaan jaamacad aado aan London jaamacada ka bilaabo waxbarashada halkaas aan ka sii wato dadku ayagoo wada nool oo hal wadan wada degan bay haddana waxa weeye shaqooyin waxbarasho kala maqan yihiin taas anigu cusri uma arko nin cararayna ma ahay anigu haddaan maanta tago oo Manchester gurigeyga un baa tegaya marka bulshada Soomaaliyeed ay idinka laftigeenu self-boodnimadan iska daaya ceebaha dadka gudbinaysaan wixiina waxba ka ogeyn iska daaya labada dhinac wax inaan ka ogeyn idinkoo aan qiimeyn ha soo dhexgelinina please bulshada Soomaaliyeed ilaahay ka baqa boqol jeer aan idin ilaahay ka baqa anigu haddaan qof liita ahay haddaan shakhsi xun ahay haddii aan ahay qof aan u qalmay in nolosha uu qofkaas oo kale la wadaago ma shalay lama soo fariisteen shalay hortiina ma keeneen shalay gabayo iyo gaaraaro uma tiriyeen run ahaantii
waxaan oran jiray waad xasuustaan xaaskaygani dheeman weeye dhirta ubax bixise weeye udgoon aan dhammaanin weeye da'bay ku dhaliilayaane agtayda xalay dhelay ka weeye ma dheheen haddaan horta ka hadlo sharci intaas oo dhibaato loo marayana ma jiro qofki yacni haddii aad u qabtaan inay waxaan qiimo leeyihiin aad u qabtaan qof sharci inta qaatay ka caray aan ahay sharci intaas oo dhibaato looma maro sharcigu waa wax weyn maahan maanta gacmaha intaan istaagaan oran lahaa dowladda aan la joogan waxaan oran lahaa gacmaha intaan waxaan oran lahaa waxba ma haysto sharci hal ay siiyo waana iska sugan lahaa intaas taas aad bay igu fududa laakiin ma samayn walaashay waqti baan la qaatay waa la noolaa waa la farxay youtube baan soo fariisiiyey dadkii baan baray shacab baan u yeelay أنا waa ku faraxsanahay horta inaad bulsho badan ay samaysatay waa ku faraxsanahay inay dadka ay ku wada faraxsan yihiin haddii aniga sumcadeeda ku waayo ayada ay noolaanaysa ee faraxsanaanaysana de ayana disaas in igu sheegto way fiicnaan lahaydo ana isku bahdiili lahay oran lahaa way adigu faraxsanow laakiin waxyaalo badan oo aan isku ogeyn ba soo baxay walaashay waxyaalo badan oo aan ku wada tashan ba soo baxay video haddii aan nin xun ah youtube-ka hatta aniga sida qorigii la igu adeegsanayo oo bulshada sharafteeda looga ciyaarayo gacantan ku hayaa ma xumayn ma dhileydin ma ka saarin waxyaalo badan oo wanaag ah oo aan sameeyay baa xumaan isu bedelay dadka Soomaalida waxay tiraahdaa sharaha khayraha falin sharku ma yimaade laakiin waxa hadii labada qof ay yaani xumaantu intaas ay ka gaarto waxay ku qurux badan tahay in xumaantii la xaliyo hadii la xalin waayana waxay ku qurux badan tahay in si sharaf leh loo kala tago ma ahan in bulshada Soomaaliyeed la soo kaciyo ma ahan in quraanka la isku jafo ma ahan in qofka kala sumcadiisa lagu dheelo aad iyo aad baan uga xumahay aad iyo aad baan mataqaanaa u noqday disappointed bulshada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay wax idinku aad aragtaan kaliya qaadanine dhanka kalena say wax u jiraan in ay ogaataan waa qurux badanta wallahi shalay markaan horteeda ka ilmeynay shalay markaan horteeda ka calacalay shalay markaan horteeda wanaag ka tusinay shalay horteeda markii aan ilinta uga tirtiray oo ay sheekadii ninkeeda hore ay lahayd qadar baa iga fiicnaa ay lahayd aan intaan soo qabtay ilinta ka tirtiray haddii aan xun ahay yaani hortiina ma soo fariisteen in qori ugu mahayn markaan hortiina soo fariisanayo idin barayay cidna qori ugu mahayn riwaayadahii iyo wacyigelinta aan jilaynay oo walaashinaynay intuu maskaxda ka imaatay haddii aan qof xun ahayna maskaxdayda waxaan ka keenay anigu waxa weeye haddana kama been sheegin sumcadeedii aan lagu ciyaarin walaashay waxaan leeyahay ilaahay ka baq bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay ka baqa sida ma ahan wiil Soomaaliyeed baan ahay bulshada laga yaabo inuu hogaamiyo laga yaabo bulshada inuu wax u qabto laakiin sid aad ila dhaqanteen iyo sidii aan idinku idin baray ayaa hawshan idin la socodsiiyay wallahi isku mid maahan walaashay waxay tiri sidoo iigu lisay iiguma hambayn sidan ugu lisay iiguma hambayn waxaan ku leeyahay eragaas waxaan ka leeyahay walaal qaali anigu horta waxaan ku qabtay sheegan maayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala umba u sheeganaya wixii shanta sano aan ku wada joognay farxad iyo wanaag haddii aad qarisay oo aad god ku ridayna de walaal qaali anigu waxa weeye wax kale oo mataqaanaa aan samayn lahaa ma jirto inta ka badan 5 sano oo aan wada joognay farxad iyo wanaag baynu ku wada joognay laakiin adiga oo isqeereynaya adiga oo isniyad xumeynaya adiga oo bulshada kicinaya inaad soo fariisatid aad soo oohaysid walaaltaas ilaahay maadan xataa ka baqin malaa'ig inay garbahaga saareen maadan ka baqin subhanallah marba waxaan leeyahay shilinka iyo mataqaanaa dhadhamada yarta ay musqusha la geynayo baa ka qiimo badan sharafta qofka haddii arintu ay inta ka sii xumaatana kumanaan boqolaal malaayiin cadeemood oo wallahi oo billaah oo tallaay oo ana cidna aan mataqaana ka heebisaneyn baan hayaa hadalkaas in ka badan inaan sii wadwado arintaana sida aad moodeen Soomaaliya way ka weyn tahay sida aad moodeen way ka fog tahay sida aad moodeen ma ahan hal la tartiibsado subhanallah ilaaha laga baqo aad baan idin salaamayaa haddaad nagu cusub tahay oo aad ka cusubtahay kanaalkina Murtaaga fadlan ku soo dhawow haddii aad hore leelo joogtayna waad mahadsan tahay muuqaalkan wuxuu noqon doonaa muuqaal xiiso badan fadlan like share iyo comment kala baqaynin xaqiiqatan su'aalo tiro badan oo aniga xaaskayga aad loo weydiiyo maadaama aan nahay laba qof oo dadku ay u arkaan victim inaan nahay laakiin anagu aan isu arag oo ay dadku noo qabaan yacni dana gaara isu galay waxaan jeclaan lahaa maanta inaan muuqaalkan yarka barnaamijka idinkaga duubo waxaana idin la wadaagi doonaa insha allah maanse yar oo aan ka sameeyay qaabka dadka su'aalaha noo soo weydiinayaan iyo anagu qaabkan u noolahay ama u aragno ana uga jawaabay dadka su'aalahooda su'aalaha ugu badan la isoo weydiiyay waxaa ka mid ah gabadhan way kaa weyn tahay qurbaad ku imaanaysay Yurub maxaa yaala dadka u qaba Yurub inay wax balaayo ay tahayna waxaan rabaa inaan insha Allah muuqaalkan uga faa'iideysto
xaaskaygana waxaa weeye aad baan u jeclahay runtii jacaylkuna da iyo aniga kule xaggayga jacaylku xuduud ma leh haddii idinku da idinku jacaylkunu da ku xiran yahay anugu kayga xuduudii wuu dhaafay ma jeclay muuqaal hadalka inaan ku badiyo laakiin maansada aan la wadaagaya maansada waxay oranaysaa maansada tani ayadoo heesana insha Allah waan soo wadaa oo nin fanaan hadda baaba iga codsaday inuu mataqaanaa soo qaado laakiin ayadoo maansa ah baan idin wadaagaya insha Allah maansada waxay oranaysaa sida tan haddii ruux dhaawac gaaro haddii geesi dhaan ka daaho dharaaraan jooga yaab leh maxaan dhutiyoon dhabcaalay maxay dhibicdu igu hoortay anoo cidla dhowrqad jooga nasiibku muxuu i dhaafshay dhigaygiya kii i liiday naftayda wixii dhibaayay horey cashar ii dhigeene haddeer dhirta ima cuslays oo aan la jeedo su'aalaha tirada badan waxyaalaha khaladka ayna soo weydiinayaan waxba hadda annaga nama cuslayaan laakiin waagi hore waxaan oran jirnay dadkan maxaa ka khaldan maxaysaan u yeelayaan ereygasaana mataqaanaa aan u cuskaday naftayda wixii dhibaayay nafteenna wixii dhibaayay horey cashar noo dhigeene haddeer dhirta nama cuslayso adduunyadu waa dharaaro lab iyo dhadig loo sameeyey dhiiggaygu miduu jeclaa maxaa cay loo dhiteeyey adduunyadan dayadaa dharaar iska ah oo maalmo iska ah marka labada qof oo isjeclaataba qof baa ka xun marka cay iyo waxaan dad baa xataa caytamaayo dad waxaasoo dhan forget it qaybta labaad waxay oranaysaa maansada dhabaha guushee hagaagsan markaan dhoofeen u guuray dhabteeda markaan ku seexday dhibtiisoo taa'idaysay dhabaha guushee hagaagsan markaan dhoofeen u guuray dhibtiisoo taa'idaysay xaaskaygani dheema weeye dhirtoo u baxbixisay weeye udgoon aan dhammaanin weeye da'bay ku dhaliilayaane agtayda xalay dhalay ka weeye 15 sano ka jira agtayda aniga waxaan jeclahay insha Allah muuqaalka inaan ku badiyo ma jecli muuqaalkan oo faahfaahsan oo mataqaanaa insha Allah si fiican u agaasimino waan la soo wadaagaya haddana waa muuqaal hordhaca waana mahadsantii saaxiibayaal markasta meel kasta aad joogtaan